magacayga waxa la yiraahdaa Mursal Saciid Cali Waraabe ayaa la yiraahdaa waxaan ku noolahay degmada Xingalool gobolka Sanaag waxaan rabaa inaan wax yar ka iftiimiyo taariikhda degmada iyo maaragtay waxyaabo magaceeda iyo sidii loo degay iyo deegaanka ka hor waxay ahayd iyo tadawuradii iyo heerarkii ay soo martay degmadu xagga waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wixii la mid ah degmadan Xingalool magaca waxa loogu bixiyay horta waxa ku yaala 32 xin baa ereyadeedan ku yaala 32 ka xin waa meelo ximan marka la yiraahdo waa meel godan oo biyuhu fariistaan oo biyuhu isugu soo ururaan oo dalsan ah oo inta badanna geela iyo idaha u fiican Xingalool waxa la degay 1960kii bishii 11aad ayaa ceelkii riiga ahaa oo ugu horeeyay laga qoday ceelka waxa la yiraahdaa waxa muday dhiisagii xilliga marka fasaldigiisu ahaa magaalada Burco la yiraahdo ayaa laga xukumay ereydatan waxa la oran jiray Umar Carte Qaalib wuxuuna noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuuna noqday ra'iisul wasaarihii Soomaaliya waxa la yiraahdaa riiga markii la taagayay mas'uulkii ugu sareeyay ee dawladda oo yimi wuxuu ahaa Umar Carte Qaalib oo ahaa Ilaahay ha u naxariisto Xingalool waxa loogu bixiyay 32 xin waxay kaga duwan tahay 32 xin dhirta ku taala waa qurac iyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ku yeelay 11 geed oo galool ah oo hadeer wali aasaartii wax ka sii joogan waxna qalaleen sida darteed baa wax loogu bixiyay Xingalool oo ximanka kale galoolka geedka galoolka la yiraahdo oo soolka ka baxay kaga duwaneed ka hor intaan la degin waxay ahayd meel runtii daaqsin ah laakiin biyo ka dheer ah oo biyaha nugaaleed iyo biyaha gebi ayay u dhaxaysay meel oo mana abay ahayd inta badanna waxa ka ugaarsan jiray sayidkii oo taleex xadar Xingalool waxa u jirtaa 90 kilomitir oo xaruntii daraawiishta ahayd ciidamadiisu inta badan iyo fardihiisu aagan kama maqnaan jirin oo markay buraan aadayaanna way ku sii dhixi jireen markay taleex iyo nugaal u dhacayaanna way ku soo dhixi jireen magaaladan meel u jirta 30 kilomitir oo la yiraahdo Doongorod waxa ka dhacay dagaal dhex maray 1945kii bishii August Ingiriiska iyo dadkii deegaanka ahaa Ingiriisku dadka halka wuxuu kaga dilay laba nabadoon buu dilay nabadoon la oran jiray Askar Cali Shire iyo nabadoon la oran jiray Caarshe Cilmi Yare hadeer meel ay qabriga Caarshe buu odagaas ku aasan yahay Ingiriiska iyo dadkan deegaanka waxay isku laayeen waxay ahayd ayax baa yimi koronkorra ah dabeedna wuxuu yiri ayax baan idin ka laynaya waa 1945kii dabeedna waxay yiraahdeen dadku ayaxa waad nasuumeynaysaa waxba naga laynay nooda sidaas dagaalkaas ku dhaxmaray ilaa 16 qof uu ku dhaawacay 2 qof uu ku dilay dagaalka ayax la yiraahdaa caan bay ku tahay ereeyada tan degmadan Xingalool caan bay ku tahay waxay kala degmadu caan ku tahay meel la yiraahdo kala noqod oo u jirta 15 kilomitir baa waxa la yiraahdaa ilma harti waa meeshii ay ku kala tageen oo midba meel aaday oo Maxamuud harti dhinacan aaday Saciid harti dhinacan aaday oo Maxamed harti dhinaca aaday oo Axmed harti marka meeshii kala noqod baa la yiraahdaa waa taariikh bay iyana leedahay oo maaragtay waa meeshii ay la yiraahdo ilma harti baa ku kala tagay magaaladu 1960ka markii la degay ceel yar baa laga amaamuday ninkii ugu horeeyay oo degaan ahaan u dagaa wuxuu ahaa Allahu naxariisto Xaaji Liibaan Cali Shire ayuu ahaa waa dugsigaana loogu magac daray waa ninkii ugu horeeyay ee magaalada dega inta kadib noloshu way iska soo tadawurtay duqi magaalo lama oran jirin marka duq magaalo laakiin waxa la oran jiray Hayd Tuulihii ugu horeeyay 1967 ayaa loo qoray Maxamed Faarax Jalawaal la oran jiray
intaa kadib waa noloshu way ku soo yare durdurkaysay 1975 markii buraan loo raray dadkii gargaarka la raray oo buraan la geeyay dad badan kuma harin waxaan garanayaa bariga anu nin yar baan ahaa 5 reer baanu ku hadhnay oo xingalool oo dhan 5 reer baanu ku deganeen anna nin yar baan ahaa 1976 baa dugsiga u horeeyay laga furay xingalool anna waxaan ahaa ardaygii ugu horeeyay ama klaaska ugu horeeyay oo dugsi ahaan xingalool loo qoro 76 wixii la oran jiray tacliimul ijbaarigi 31 arday baan ahayn wuxuu ahaa xilligaas laga furay fasalkii ugu horeeyay macallinkiina qoray waan xiriirnaa Axmed Qaadi baa la yiraahdaa macallin reer Muqdisho abu ahaa haduu maqlayana waan salaamaynaa waa macallinkii ugu horeeyay ee xingalool dugsi ka fura wuuna nool yahay xamar baana ku ogaa ustaad Axmed Qaadi ayaa la oran jiray kadib wuxuu yeeshay iskuulkii dugsi hoose dhexe annagu 1981 dadkii dugsiga hoose kaga baxay baan ahayn eedkii ugu horeeyay marka eed ma jirin 6 baa lagaga bixi jiray dugsiyada 6kii ugu horeeyay ee ka baxa ayaanu ahayn dugsi hoose dhexe ka baxa kadibna waa tii burburkii wadanka uu ka dhacay 12 bishii 1992 baan rag aan anigu ku jiro oo dhalinyaro ahi dib u aasaasnay waxbarashadii uga furnay waad garanaysaa dawladdii marka dhexe waxay burburtay 91 bishii 28 annana waxaanu furnay 12 bishii 92 halka waxaad ka garanaysaa ardada reer xingool gaab badan kama lumin xaqii waxbarashada kama lumin isla markaas waxaanu ku furnay meel yar oo maaragtay cariish ah markii dambe container baanu helay containerkaas ardada ku hayn jirnay ilaa markii dambe uu sida iskuulkii maaragtay uu ku soo maaragtay tadawuray iskuulkaasina maxay ahayd markii dambe iskuulo kale uu dhalay maanta waxa ku yaala magaalada 4 dugsi hoose dhexe iyo hal secondary 3 shariicada islaamka lagu barto muxuu ahaa dugsiyo noocaas oo fara badan baa ku yaala ardada dhigata arday 2000 oo ku dhow oo maaragtay waxbarashada dugsiyada aada weeyaan ayalka 1960kii la aasaasay waxa ku xigay magaaladu meel iska biyo yar bay ahayd ceel la aasaasay uu qoday shiinihii kambani shiinuhu qoday 1985 baa ceelka la qoday waa ceelka hadeer ceelkii ugu biyaha badnaayo wali wuu jiraa intaa kadib magaaladii waa way weynaatay waxa kale oo laga qoday ceelka hadda la macaaniyay oo maaragtay la saaray maaragtay la filtareeyay oo ceel kale oo isna gargaar la yiraahdo oo dhexdan ku jira ayay magaaladu sidaa waxay ku leedahay marka hadda 3 ceel oo waaweyn oo uu ku jiro ceelkan hadeer maaragtay magaalada la rabo in la biyo geliyo oo runtii mashruuc aad u fiican oo lagu farxay oo wanaagsan oo ummadana wax taraya sideeda meesha biyaheedu waa didib bay ahaayeen biyo aad u qaraab biyaheedu way badan yihiin laakiin waa biyuhu maaha waa biyo maaragtay aan dadka ku fiicnayn xoolaha iyo waxa ku fiican magaaladu waxay leedahay 2 MCH health center oo isbitaal ku dhow iyo MCH bay magaaladu leedahay xagga caafimaadka runtii magaaladu waa magaalo hadda koraysa wada yar baa dhex marta hadeer oo iyana bilow ah waxaan garanayaa 1987 anigoo markaa macallin ah oo national service-kii baaqolo waxay tiri war xingalool waa biyaha waa may waliba ka horeysay intaan ceelkan shiinaha la qodin bay ahayd gabay baan markaa anoo nin yar ah ku tiriyay si maaragtay anoo ilaahay maartay u bari waxaan yiri xingalool bay yeeshay oo buraan looga arooray oo booyadii ka cabayso oo bulxan ay isku jiidhay oo badi ka dhacayso bari soo arki mayno nabsi waa bedelmaayo barbar way soo rogaa ilaamiga oo la balaashay xingalool lagu beegay nalkii loo ballan qaaday barasaaba la keenay bari soo arki mayno marka waa tafaa'ul fiican bay ahayd hadda magaaladii magaalo kortay weeye 2 shirkadood oo korontada aba ku jira 2 shirkadood oo isgaarsiinta aba jooga muxuu ahaa golihii deegaanka ee ugu horeeyay xilligii madaxweyne Cabdi Muuse ayaa la doortay 2000 iyo inay 5 ahayd baan rajaynayaa ba councilkii ugu horeeyay la doortay magaaladu xilliga siibay ahayd degmo ahaan siibay ahayd laakiin magaaladu hadeer waxay u kortay B degmada maanta waa B councilkiina hadeer councilka ku xigayna waa kan hadeer qof iyo codka lagu doortay May oo hadeer maaragtay maayirkeedii iyo shaqa maaragtay xubnihii ay diyaar yihiin
27 xubnood markaana 21 xubnood oo C bay ahayd maantana 27 xubnood weeye insha Allah in ay noqoto oo 33 xubnoodna ay gaadhana insha Allah waan rajaynaynaa maktabada tan halkan hadda aan fadhino oo codka lagu doobayo oo maktabada ugu weyn waxaan bay siri xagga dhismaha waa maktabada Puntland ugu weyn marka la eego baaxadda dhismaha kutubta waxa jira maktabad yar oo kale oo dugsiga Liibaan leeyahay oo aan tan de ka yar labada maktabadood bay magaaladu leedahay oo loogu talagalay ardada iyo dadka inay wax ka faa'iideystaan magaalada waxa laga dhisay meel maaragtay farsamada gacanta ah oo ninka la yiraahdo Professor Cabdirashiid oo qurba joogta magaalada kamid ah baa dhisay meeshaas diyaar marka hadda waxay u tahay in la qalabeeyo lana furo oo dadka maartay korontada iyo nijaaradda iyo maartay tuubagelinta biyaha iyo skillskaas dadka lagu baro waxa kale oo magaalada laga dhisay xarunta tababarka macallimiinta Professor Abshir oo lagu magac daray wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland oo iyana hadda dhismaheedii u dhamaaday oo loogu talagalay in 2 sano oo training teacher ah macallimiinta cidii imanaysa iyo cidda magaalada joogta 2 sano la geliyo muxuu ahaa ayaa loogu talagalay oo magaalada ka dhisan runtii magaaladu way koraysaa iyo maaragtay magaalo koraysa weeyaan insha Allah waxaan rabaa si kooban warbixintii magaalada inaan inta ku soo gabagabeeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh